aniga waxaan aad ugu hamuun qabay oo aan aad u arkayay inay priority tahay shaqaalahan isdul hoganay because markaan nimid xafiisku waa imis dadka jooga waxa lagu leeyahay waa 400 hay haddaad aragto yaa shaqada ku jira waxa laga yaabaa inayna 100 ka badnayn wasaaradda meeqaha joogta 350 ma joogto maxaa xafiisku shaqa haday imaadaanba gabiyooduba xataa wasaaraddu haday si kasta haday isla isugu dayo xafiis looma hayo xataa meel ay istaagaan male hadii la istaaga xataa shaqaalaha ku qoran meesha dhinaca asaasay ka ahaayeen oo ay dhinac ka yihiin dhinaca kale sidii hadda la sheegay laba qof oo isku shaqo qabanaysa oo hadana aan isku mushaar ahayn laba wiil yar oo hadda soo graduate gareeyay iyo aabihiis oo 8 shaqo bilaabay oo jaamacadda ummadda ka soo baxay oo isku mushaar qaadanaya isla joogaan warsay waxaan ku dhacaya ayadana waa fadhida meeshana ku fadhisaa waxa inta ka sii daran wasiirku uu imanaya markuu imaado waxaa la imanaya jawaano dada soo dhabarka ku wata jawaano dada soo dhabar ku wata ayuu imanaya shaqaalihii sii fadhiyay ee sii joogay oo meesha sii fadhiyayna boorsooyinkooda waxay xiranayaan waa sii socdaan waa ka sii dareerayaan ayadana culays bay noqotay marka runtii aniga waxaan dawladda anoo ku dhex jiri jiray ogaa waxaan aad u dareemayay baahi weyn inay jirto intaa waxaa sii dheeraa dee shaqaalahan dareeraya qof wax ku imaanaya xil dhibaano yaacaya iyo odayaal yaacaya oo inta yaacaya 5 baa meesha nagu jirto waa la dareeriyey 5 kale la keenay 5 kale inta la tuuray boqol yani wareer waxaan ma wax ka qabano waxaan ogaanay marka in aysan fayl sahlan ahayn oo u baahan tahay in shaqo dheer in la geliyo horta bal inta aan la gaarin in duhabe yani meeshaan anagu joogna anagu waxaan rabnay in bariba xafiiskan hagaago laakiin waxaa noo soo baxday in uusan xafiiskan la hagaajin karin oo hadda meeqa sana 7 sano 7 years miya waxa way World Bank uu meesha taagan yahay IMF la leeyahay sidan inta dhiga oo lagu wareersan yahay marka in process la geliyo hay'ada loo magacaabo shaqo la qabto road map la sameeyo iyo xeerar dhiman oo muhiim ah oo haddaan xeerarkaas la helin aan suurtagal inaysan ahayn in deel iyo inaysan ahayn shaqaale meesha ka hagaajiyay wuxuu inay tahay about structures oo structure-ka in la hagaajiyo ay tahay marka koobaad interior-ka in la hagaajiyo ay tahay marka in deedna la yiraahdo marka ugu dambaysa la gaaro the right person in the right place ujeedku waa inta yaa meesha ku habboon iyo meesha ku hayn la dhigo ujeedku waa taas